وعنو wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah bangiga adduunka oo lacag gaaraysa 100 milyan ugu deeqay dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Jubbaland oo eedeyn culus u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya xilli abaara ba'an oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ay ka jiraan deegaanada maamulka Jubbaland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray goobihii ay ku dagaalameen ciidanka Liyu Police iyo Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Bakool iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danab iyo kuwa Jubbaland oo howlgalo ka sameeyay deegaano ay maamulayeen Al-Shabaab oo ku yaala Jubbada Hoose intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatana u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 28 bisha 7 sanada 2022 hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo soo booqatid channelkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku share gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay maamulka Jubbaland ayaa eedeyn culus u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sheegay in lacag 1 milyan oo dollar gaarayso oo xukuumadii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble u qoondeysay gurmadka abaaraha la siyaasadeeyay waxa uu sheegay lacagtaas iyo deeqaha caawinaada ah ee loogu talagalay abaaraha ay noqdeen kuwa lagu raadsanayo saaxiibtinimo ama xil wasiir sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed waxa uu sheegay in deeq kasta oo ka timaada caalamka ay ahayd in dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ay ka tashtaan sida loo qaybinayo balse taasi ay meesha ka baxday oo dad gaar ah ay joobkooda ku shubteen wasiirka waxa uu sheegay in cabashooyinka madaxweynaha Jubbaland uu u gudbiyay madaxda sare ee dawladda Soomaaliya ayna rajeynayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalo in si siman looga wada tashto loona qaybiyo deeqaha caalamka uga yimaado Soomaaliya hadalkan ka soo yeeray wasiirka gargaarka maamulka Jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli dhowrkii sane ee laga soo gudbay uu xumaa xiriirkii dawladdii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland abaaraha ka jira dalka ayaa saameyn adag waxay ku yeesheen dadka iyo dunyada waxaana qayladaan xoog la diraya madaxda maamul goboleedyada dalka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta waxay ku haysaa lacag loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaana xilligan cabashooyinka dadka ugu horeeyay jeedinaya noqda maamulka Jubbaland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya ayaa gaaray goobihii ay ku dagaalameen ciidanka dawlad deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa gaaray dhawaan goobihii ay ku dagaalameen Al-Shabaab iyo ciidanka Liyu Police ee dawlad deegaanka Soomaalida ay degto kuna yaala xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya xildhibaanadan oo ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka mid ahaa Aadan Maxamed Nuur Saransoor wuxuuna sheegay in ujeedkoodu uu ahaa xog ururin iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen dagaaladii ka dhacay halka Saransoor ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in markii ay tageen deegaanadaas si weyn loogu soo dhaweeyay ayna shacabka aragtidooda aad ugu farxeen maadaama ay gaartay dawladdu sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in gurmad iskugu jira raashin iyo dawo ay gaarsiiyeen shacabka si loo caawiyo maadaama ay sameeyeen barakac waxa ugu baaqay dadka deegaanka ee barakacay inay guryahooda dib ugu soo laabtaan isla markaana ay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka ee ka howlgala xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya dhawaan ayay ahayd markii Al-Shabaab dagaal aad u culus ay kula galeen xadka Itoobiya ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac Al-Shabaab oo weerarkii ugu cuslaa ka qaaday dhowr jiha oo ku yaala gobolka Bakool ayaa u suurta gashay inay gudaha u galaan dawlad deegaanka dhul ay leeyihiin isla markaana ay kula dagaalamaan ciidanka Liyu Police dagaalka ayaa noqday mid maalmo badan qaatay waxaana gabi ahaanba deegaanadii lagu dagaalamay iskaga barakacay dadkii rayidka ahaa ee deganaa maadaama dagaaladu ay ahaayeen kuwa aad u culus ciidamo aad u hubeysan isla markaana tiro ahaan aad u badan kana yimid deegaano badan oo dhaca dhulka Soomaalidu ay degtay ayaa ka qayb qaatay dagaalka inkastoo ay sheegeen in la soo afjaray laakiin wali ay jiraan meelo ay ku dambeeyaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ballan qaadeen inay aad u adkeyn doonaan amniga xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama meeshaas ay tahay meesha weerarka ay ka qaadeen Al-Shabaab
bangiga adduunka ayaa 100 milyan ugu deeqa Soomaaliya. Bangiga adduunka ayaa lacag malaayiin dollar ah waxa uu ansixiyay Soomaaliya taas oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka si loo gaaro heerka dhamaystirka ee barnaamijka deyn cafinta ee dalkeena. Lacagtan oo gaaraysa ilaa 100 milyan oo dollar ayaa Soomaaliya waxa uu saxiixay maamulka sare ee bangiga adduunka si loogu taageero dawladda federaalka Soomaaliya. Ujeedadan ayaa ah horumarinta dadaalada dawladda ee ku aadan daahfurnaanta maaliyadeed iyo kordhinta dakhliga sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bangiga adduunka. Sidoo kale waxaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in deeqdan lacageed ay waafajin doonaan nidaamyada kastamka ee federaalka iyo sidoo kale hagaajinta maamulka maaliyadeed ee dawladda. Maamulaha bangiga adduunka ee Soomaaliya oo ka hadlaysa taageeradan dhaqaale ayaa sheegtay in sidoo kale wax looga qaban doono abaaraha ka jira dalka. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka mid ah Soomaaliya looga taageerayo la dagaalanka ayaxa oo wali faraba'an ku haya dalkeena. Ayaxa ayaa saameyn weyn ku yeeshay qaab nololeedka ku dhawaad 2.6 milyan oo ku noolaa 43 degmo oo ka tirsan Soomaaliya, iyadoo qaybta beeraha lafdhabar u tahay 75% dhaqaalaha dalkeena. beeraley badan ayaa saameyn ba'an waxaa ku yeeshay anyax kaas oo xaalufiyay dhammaan dalagyadii ay beerteen. Qaar badan oo ka mid ahaa beeraleydaas ayaa noqday kuwo waxba aanan haysan isla markaana galay xaalad adag oo iskugu darsantay xaalufinta ayaxa iyo sidoo kale abaaro saameeyay. Hay'adaha gargaarka bixiya ayaa dhowr jeer ay ka dalbadeen inay ka caawiyaan sidii mar kale ay uga soo kaban lahaayeen xaalufinta ayaxa uu u geystay dalaggii ay beerteen isla markaana ay u tacban lahaayeen mar kale. Dawladda Soomaaliya ayay sidoo kale ka dalbadeen inay ka taageerto la dagaalanka ayaxa si ay u noqdaan kuwo mar kale dalagyadooda beerta isla markaana ka nabad gala ayaxa. Ugu dambeynna ciidanka Danab iyo kuwa Jubbaland ayaa howlgalo wadajir waxay ka sameeyeen deegaanada maamulka Jubbaland. Ciidamada ururka shanaad guutada 16aad ee Danab oo ay wehlinayaan ciidanka nabad sugidda maamulka Jubbaland ayaa howlgalo wadajir waxay ka sameeyeen tuulooyinka kala ah Yaaq Xalwo iyo Kaamjaroon oo hoos yimaado gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay intii howlgalku uu socday inay ku guuleysteen sii deynta maxaabiis ku xirnaa xabsi ku yaala tuulada Kaamjaroon kadib markii Al-Shabaab ay deegaankaas iskaga baxeen. Sidoo kale waxay sheegeen in howlgalka lagu burburiyay dhammaan saldhigyadii aagaas ay ka deganayeen Al-Shabaab iyo goobihii kale ee weerarada ay ka soo abaabuli jireen sida ay sheegeen saraakiishu. Saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ee howlgalka ka qayb ahaa ayaa warbaahinta u sheegay in howlgaladan ay sii wadi doonaan inta deegaanada Jubbaland laga saarayo Al-Shabaab. Dhowr jeer oo hore ayay ciidamada kumaandooska Danab iyo kuwa maamulka Jubbaland waxay howlgalo wadajir ka sameeyeen deegaanada gobolka Jubbada Hoose. Dhowr jeer oo hore ayaa ciidamada kumaandooska Danab iyo kuwa maamulka Jubbaland ay howlgalo wadajir waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, iyaga oo sheegay in howlgaladaas ay ku dileen xubno iyo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Inta badan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danab ayaa waxay howlgalo ka sameeyaan deegaano badan oo dhaca gobolada dalka, waxaana howlgalada ugu badan ee ciidanku ay sameeyaan ay ku soo bandhigaan hub iyo dad ay sheegaan inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo lagu soo qabtay howlgalada. Ciidamada iyo saraakiishooda ayaa dib kaga soo laabtay deegaanada ay howlgalada ka sameeyaan marka uu soo dhamaado howlgalka. Taas ayaana waxay keentaa in Al-Shabaab mar kale ay dib ugu soo laabtaan deegaanadaas. Howlgalka xilligan ay ka bilaabeen gobolka Jubbada Hoose ayaana la ogeyn waxa uu kaga duunaan doono howlgaladii ka horreeyay oo ay sameyn jireen ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danab. Intaasina daawadayaal waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Waadna ku mahadsantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina. Wixii aragtay oo noo haysaana noogu reeba qaybta hoose ee commentiga.